مساجد جمعه لبوحه وقال له تكنايو أيا نين قروح بدن أو در آذو قروح بدن ستة أيا صفقه ركوتو كذي وكسوا كعي علماء دي بقوي مدي وحبودك تأوش يا جاي شيخ إمام كان ميكروفون قاتو حيري نيكا ولالكن يندل تاجن وحولها جمع مسلمين تو أولاد إلهي هاي ويديان بوليه ادعي يقولي والله ادعي ما شاء الله هذانا جمعيه كانوا سوكعي دعادي بو شيكتي والله ادعي هذانا جمعيه سدعاد بو سوكعي دعادي بو شيكتي والله ادعي نين علماء كمدا فكري او ياري سو فريسبيلو وحول امس دمر غورستي بو كيدي markaas ilmo buu guursanba hadiisaasi ma soconaysa ducadaasi majmacaadan ee awliyadii culimada u badan u duceeyeen ilma ma ku helaya limaada muxuu weelay bal sheeg khilaaf sunna sunnadii ilaahiyadii buu khilaafsan yahay dariiqadii loo marayay saxda ma marin marka uu soo kacay hay'adiisa quruxdiisa waxa la moodayaa nin afar dumar leh oo wali u badnaan ku tixin laakiin markuu yiri maba guursanba ayaa la yiri war number ba ka qaldane horta soo guurso horta numberkaas ka soo sax numberka ilaahay bari tayib hadana jamcihi kale soo kacay ninkii xaaladiisa ogaay xawaasha ka qaadayba ayaa yiri war naga fariis wariyaa intuu imaam meeshii buu fariisiyay culamadii baa ku tiri war waa ninkii ducada doonaya khayrka badnaa duca doonkii maxaad u fariisisay baa laga yiri markaasuu yiri war number ba ka qaldan buu ninka maskaxdu wax ka yar qaba saad ku garatayo dama bu guursan buu yiri eega kulligeen dadka maanta muslimiintu in muslimiintu a'azza an-nas dadka adduunyada ugu sharaf badan inay noqdaan ma jecelahay mise ma jeclin balki jecelo gacanta taag laakiin dariiqii muslimku aziz ku noqonayay inaan qaadno diyaar ma u nahay uma nihin bisada iyo jiirka maxaa ka dhaxeeya is-aragu ma ka dhaxeeya soo ma jiirkii baa isku yimiday way tashadeen waxay yidhahdeen habeen walba bisadii 10 20 waa la nadhameeyey seen u badbaadnaa ka tala bixiya jiir baa yidhi markaa ra'yi fiican buu soo jeediyo wuxuu yidhi waa mithaal yani koortan awrta la suro soo ma taqaanaan jaras geela la suro hal la qaado oo bisada qoorteeda la soo suro buu si markay soo socoto shanqadha loo maqlo dadna looga dhuunto markaas jiirkii oo dhan baa yidhi wallahi fikradaas waa fikrad fiican tala fiican buu soo jeediyey waan isku raacnay marka jiirka sheekhoogii ugu weynaa baa yidhi waa hagaaga ayaa soo suraya buu soo saamaynta nabiga ku salliya dad muslimiinta oo dhan maanta inay diinta dhageystaan inay diintu nolosheena ka muuqato inay muslimiintu a'azza an-nas inay noqdaan inay waan jecelahay laakiin marka la gaaro diinta dadaalkeegii nin walba gaarka dambu gashanaya markiiba war waxba gaarka dambe ha gashane gaarka hore gasho yaa u diyaar gaarka hore inuu geliyo insha Allah dhahada Allah inaga farxiyo nin taajira ayaa miskiidka soo galo ducaysanayay nin ay qaraabo yihiin oo baahnaa ayaa markaa aqalkiisii buu ku waayay xafiiskiisina markuu tagana waa laga celiyaa wuxuu yidhi miskiidkeebu ku tukadaayo miskiidka halkaa ku yaalo ku tukadaa baa la yidhi masaajidkii buu dhex fadhiistay markaa dee ninkii taajirkii dad muxsiniinaas ka jiro ilaahay ku xidhan moogtahay oo ilaahay cilaaqa la leh iska alla barya markaas kiina albaabka intuu ka baxay buu dibaddu ku sugayaa ilaa dhinacu ka soo galay buu arkayay markaasuu wareegaayo markaasuu arka ninkuu ducaysanaya haddana uu wareegaayo ninkuu weli ducaysanayo salaad sunna intuu tukado iska alla baryaaya markuu ka soo baxay buu ku yidhi baahida adigu ku hayseed la alla barya maxay tahay buu ku yidhi annaka yahayd buu yidhi inaan meelahan ku baryootanne adigu waad haysataa ee maxaad gacmaha la taagtaagi maanakaad nagaga dhumanaysaa meesha soo bax buu ya allah ya muslim taajirku ilaahay buu u baahan yahay miskiinkuna ilaahay buu u baahan yahay
madaxdu ilaahay bay u baahan yihiin dhallinyaradu ilaahay bay u baahan yihiin shucuubtu ilaahay bay u baahan tahay ilaahay bini aadamku lamxata cayn kama marmi karaan ilaahay waan u baahannahay diintu qiimay leedahay shayga qiimaha leh waxaa lagu gartaa markaad adigu aad waxa qiimaha agtaadana aad gashatid oday baa inankiisu ku yidhi aabba intaa oo sanaan masaariif ku siinaye bal maanta 1,000 shilin aabba ii keen buu ku yidhi 1,000 shilin dhididkaagaan rabaa inaan cune ku yaroo ciyaal magaalo weligii shaqo aan arkin aqalka hooyadii ku koray oo dhinaca baan u dhaafin markaasuu u tagay baa la yidhi hooyadii buu ku yidhi hooya 1,000 shilin siiyo maxaad ka dhigayo anaa u baahan hooyaysi way siisay odaygii aabihii buu u geeyey intuu nin lacagta soo shaqeeyay iska dhigay buu aabbo waatan lacagtii hoo uu ka qaado dab hortiisa ka baxayay buu 1,000 shilin ku tuuray odaygii markaasuu weliba inankiisiiba hoosta ka yar eego saasuu eegay markaasuu haddana 10 maalmood kadib buu ka yidhi bal beri toolana waan 1,000 shilin aabba waan kaa rabaa fariid baaba tahay adigu ye shaqadaaba taqaanaa 1,000 shilin ii keen hooyadun buu ku yar wareego hooyo lacag siiyo maxaad ka dhigay oo way siisay hooyo moogta hooyo macaan uu keeno uu ka qaado dabkii uu haddana ku tuuray kiina bul maalin muddo kadib uu haddana yidhi bal maantana aabbo fariid baaba noqotee uu tago hooyo 1,000 shilin siiyo war lacagta beriyahan aad iga gurto horta halkeed geysaa way runta ma kuu sheega ahaa aabba igu yidhi ii soo shaqee anu shaqa ma garanaye isagaan markaa u geeyaa 1,000 shilin oo muxuu ka dhigaa odaygu lacagta wallaahi dab hortiisa ka baxayo buu ku tuuraa isaguna markaasay ku tiri war lacag la gubo anigu ma hayee hore magaalada u galo odayga waa mithaal yani mithaal xataa tafhamu shaqo tagay dad markaa wuxuu arkay niman aqal dhisaya uu arkay u waraysto maalintii imsaad soo shaqaysaayo caynkaasoo 1,000 shilino uu la shaqo tago adu wuxuu hawl soo qabanayba uu soo qabtay lacagtii hore lacagtan ma isku qiimaa markaa uu keenay odaygii aabbo hoo markaasuu yidhi weliba hadal buu raaciyo wuxuu yidhi aabbo lacagta dabka ka ilaali dee nabiga ku sallaya markaasuu yidhi oo maxaa ku jaban buu yidhi haddaan ku tuura kuwii horeba soonigii gubayey ma may aabbo tani tii hore way ka duwan tahay tan hee tan waa dhidid baa ku baxay buu yidhi waxaan u soo qaatay maalkaas shaygan marka uu maal iyo wakti iyo caqli iyo dadaal iyo ragnimo ay kaa gasho ayaa qiimihiisa la gartaa kuwa maalin qayilayo iska barjeynaya waa kan jamaacadadu dadkay ziyaartaan ma ogtahay ayaan u gallay si fiican bay noo soo dhaweeyeenoo BBC iyo raadiyoogina way baktiyeenoo wayna dhegaysteen markaan u yar dhammaynay wacdigii een idhi dee fadhiguna kala fiicane masaajidkeenna mariyo nee raaca mid baa gacanta taagoo yidhi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa soo diray waxa lagu yidhi namaad maqasheen buu yidhi markaasaan aamusno kuwii la barjeynayay baa yidhi war ninkani waa jaamiciyo waxbuu inii kordhina ka dhegaysta haye inoo kordhiyo jaadka uu takhsiisan yahay sigaarkana nebiga waxa lagu yidhi maad maqasheen bal noo sheeg fadakir inamaa anta mudakir lasta calayhim bimusaytirin ilaa man tawallaa wakafar hadalkaa ka warrama dadka waani baa nebiga laga yidhi aduu waaniye uun baa tahay ka diinta dadka qasabka ka dhigaya ma tihin nebigii baa sidaa lagu yidhiye waad noo sheegteene qasab ha nagaga dhigine iska socda markaasay kulligood yidhaahdeen ninkaas sheekhaygu waa ninkaas shaydaan baa sheekhiina oqoontii uu hayaa laakiin taqwadii baa hoos u taalla iimaankii baa daciifa
annagoo jawlad bari soconna baan nin u tagnay Soomaaliya oo la yidhi ninka waa Soomaali waa nin meel fadhiyo khamri cabaya wadannada gaalada markaasaan u tagnay assalaamu calaykum markaasaan calaykum assalaam xageed ka timaadeen meesha ma miskiid baa meesha salaamu calaykum tanaleedihiin buu nagu yidhi maye dalkii baan ka imanno qaaraddii afrikaan ka imanno ininkaani soo buuqanno inaad miskiidka noo raacdaan doonayno miskiidka ah diinta ayaa ni bar ininka buu yidhi diinba ma taqaanaan sawka ilaahay yidhi maa laa taqrabu salaata wa antum sukaara xataa taclamuu maa taquuluun nisakhraana oo aayaddu daliilinaya eg macluumaadka uu hayaa laakiin yaqiintii iyo iimaankii baa daciifa markaasaan ku nidhi laa baas na raac sidaa nagu raac ima raacayo na raac jamaacadda intii kalead soo salaamay na raac ilaahay fadligii ninka sidii buu nagu soo raacay jamaacaddii buu la dhegaystay habeenkii buu nala seexday subaxdii markuu kacay ee khamraddii ay ka bacday uu arkay miskiid laga dul eedaamayo uunbuu telefoon qaatay oo wuxuu yidhi uun ayaa meeshan i keenay ii sheegay buui waan xidhibe booliis baan ugu yeedhayay waddankan haddii booliis lagugu yeedho waa khalaas waa lagula tegi uun markaasaan idhi aan cidba kuuma yidhi naga raalliha waa iska socow bas iska socow markii dambe raggii noo sheegeen waxay nagu yidhaahdeen ninkaa waddanka markuu soo galay caalim buu ahaa weliba masaajid waddanka ku yaalluu imaamka ahaa bay nagu yidhahdeen maantana dariiquu khamriga ku cabbayaa waxaan xasuustaa maalin sanadkii horaan u malaynaya bishii November bisheedii diyaarad baan ka raacnay Djibouti waxaan u soconnaa Addis Ababa Ethiopia Airlines maalmaha diyaaradda raaci doono muddo 5 bilood laga joogana diyaarad baa ku dhacday Ethiopia dhexdeeda 150 qof ay ku beeshay waad maqashay ma malayn ya 130 dar dhabayna la fadhiisatay dad baa naga raacay dadna hadana safarkii baa sii wadanay ilaa Addis markay u dhawaato waxay gashay roob iyo buuro waana meelihii diyaaraddu ay ku dhacday ugu way girirtay markaa kursigan aan u fadhiyaa kitaab quraan aan iska akhrisanaya halkaana culimo kala fadhida halkana nin daadiisa ku qiyaasay 60 jir oo aan muslim ahayn oo gaal ah oo xabashi ay fadhiya diyaaradii way girirtay markaa quraankan iska akhrisanaya lugtaydii buu qabsaday naxdin daraadeed markaas aan ku yiri laa ilaaha illa allah markaas uu yiri igu celi way girirtay hadana diyaaradii oo naxay aniga hadana ay qabsaday markaa baan laa ilaaha illa allah markaas laa ilaaha illa allah subhanallah dhageysta musa ajiib wallahi waa qisa ajiiba markaasaan ayaan ku iri maxaad la cabsoon baan ku iri odayadaaba hamay cabsoon odayada marka aniga la socday niman culimo reer Djibouti bay ahaayeenoo ijtimaac ka dhacay Addis Ababa ayaan u soconaa way iska hurdaniyo ku markaa kursiga dusheeda iska quurinayaan markaasaan ku iri kuwa hamay cabsoonayaan adoo maxaa la cabsoon wuxuu yiri kuwaasi way shaqaysteen anu ma shaqaysan buu yiri kuwaasi waa muslimiin way shaqaysteen buu yiri ma cabsoonayaan anu laakiin ma shaqaysan buu yiri adduunkan aan khamri ku cabaa fisq iyo fujuur iyo balaayo iyo macsiyaan ku jira maxaa markaa wuxuu yiri anu islaam baan u baahanahay buu islaam inaan islaamaan doonayaa buu yiri hadalkii haddana socday girirta diyaaradii markaas haddana lugtii qabsaday war isiida laa ilaaha illa allah markaas iga dabeeyo laa ilaaha illa allah diyaaradii markay nala fadhiisatay baan fursad baan helay waan ka faa'iideystay waxaan ka yiri waa inaad islaamtaa wuxuu yiri islaamnimadu bariyahan oo dhan maskaxdayda ku dhex guuraysaa buu yiri waanan arkay buu yiri dadka muslimiintu dad wax weyn aaminsan inay yihiin waan arkay buu yiri rag badan oo ganacsato muslimiinana saaxiib aan lahayn buu yiri marka ii soo duceeyay buu yiri culimadana igu sheegay ii soo duceeyaan anna ballan waan islaamaya buu yiri hadalku halka noo mareen marka ayaa la soo dhaadhaca waxaan xasuustay marka aayadaas وإذا ركبوا في الفلك
dacwu llaha mukhlisiina lahu ddiin falama najaahum ila albari idaa hum xaalad adag markay ku timaada baa ilahay yidhi kuwa gaalada xaggay u soo ordaan xagga ilaahay. tal qisaan inii sheegi niman caddaana oo dalxiistayaal ah xeeb bay marayeen, meel xeeb ah. xeebtii waxay ugu tegeen nin muslim oo dhallinyaro ah oo xeebta iska jiifa, badda dhinaceega iska jiifa. way kiciyeen, waxay ku yidhahdeen meeshan maxaa ku dhigay? wuxuu yidhi waxaan ahay kalluumaysto, baddaan ka kalluumaysanayaa oo khaydkiibaa badda iigu jiro, halkana waan ku xidha lugtayda. marka kalluunku marka uu galo khaydkaasi, dabeedna waan lugtaydaa dhaqaaqi, waan kici, waan soo saaran, waan iska karsadaa, dhowr xabadoodna waan qaataa, reerkaygaan u geeyaa buu ka yidhi. way ka naxeen markaas, lacag bay iska soo ururiyeen, lacagtii bay u dhiibeen, lacag aad u fara badan. wuxuu yidhi maxaan ka dhigaa? waa qiso maal yani. waxay ku yidhahdeen lacagtan waxaad ku iibsataa shabag, fahmaysaan baan u malayn. shabagaabaad badweynta ku tuuran, halkaad 2 iyo 3 maalintii aad qabanayseen 20 baad qaban. markaasuu yidhi kadibna waxay yidhahdeen in muddo ah sidaa u shaqee, lacagta yar ururso, doon yar baad marka dambe iibsan doontaa, enjin yar baad, mooteer yar bay leedahay, badweyntaad ku dhaadhici doontaa. halka maalintii 20 aad soo qabanaysay 100 kalluun baad soo qaban, ilaa 200 oo xabadood. markaasuu ku yidhi kadibna, markaasay yidhahdeen in muddo ah sidaa u shaqee, magaalada halkan suuqa khudaarta iyo hilibka lagu iibiyaad meel ka furanaysaa, halkaasaad markaa ku iibinaysaa, dadkao dhan baa ku baranaya, nin caamaad wadanka ka noqonaysaa oo kalluunka lagu yaqaano. hebel kalluun labaa lagu odhan markaas, hebelkii kalluunka iibin jiray. markaasuu kadibna dhowr sana sidaa u shaqee, haye lacagta ururi, baanka dhig, kadibna laashkan dheereeya ee badweynta u dhaadhaca ayaad iibsanaysaa. fadeed, annagu xaggeega fadeed baan idhahna, jabuuti fadeed. kaabaad iibsanaysaa, baddaad ku dhaadhacaysaa, dabeedna waxaad soo qabanaysaa dhowr 1,000 xabadood baad soo qabanaysaa maalintii, iyo weliba khayraad badan oo badda ku jira. markaasuu yidhi kadibna gobollada waddankao dhan baad ka furanaysaa markaa branch, meelo maaragtaani aad ku iibisad kalluunka, waddanka dhanba kalluunka adigaa siinaya. markaasuu yidhi kadibna muddo sidaa u shaqee, haddana 5 sano 6 sano lacagta ururi, waxaad iibsanaysaa marka dambe warshadii saaradiinka samaynaysay. markaasuu yidhi kadibna warshadaasi markaa way shaqaynaysaa, waad shaqaynaysaa, way shaqaynaysaa, adduunkaad u kala diraysaa. markaasuu yidhi kadibna qasri weyn oo villa ayaad dhisanoo si fiican baad u seexan bay ka yidhahdeen. wuxuu yidhi hadda markaad ii timaadeen baad hurdayga kicisayna buu yidhi. wuxuu yidhi ma hurdo un baan intaa u maraa buu yidhi, sownigii hurdayn baa imikadan. waxaan ka wadaa macna isku aragti ma lihin.